waxaa lii sheegay guddoomiye cali jeyte inuu magaalada muxuu ahay buundada liiqliiqata ciidamo badan isku soo daadiyey oo saaki ay qalqal magaalada gashay oo uu yiri qofkii reer qoraxsin oo soo gudbo waa la yiri aniga ma aqaano ma garanayo waa wax la yiri waaye xaqiiqdeedana ma hayo laakiin guddoomiyaha yiri booliiskii meesha joogayaa sheegay cid allaale ciddii soo gudubto oo reer qoraxsin ah wejiga ha laga calaamadeeyo uu yiri taas haddii ay dhacday waa mas-uuliyad xumo waa midaan meesha qaban waa waxaan dadka reer qoraxsin aan ku habbooneen in lagula hadlo waa wax kala qaybina ummadda soomaaliyeed reer hiiraan dhibaatada waa wada saamaysay qoys aan laga dhimin ma laha qoys ay dhibaatada ku dhaceen ma laha dadka reer qoraxsinaa weliba ugu badnaa ilaahay markii laga baqaayo dhimashada qarax ugu horreeyey anigu hadda liigama sheegin buundada liiqliiqatay kasoo gudbeen liiguma oran waxaa liigu yiri dhinaca bariyay ka yimaadeen laakiin baabuurkii damba asoo la xabadaynaya ayuu maray oo ka gudbay muxuu ahay haddii marka xanaaq buundadii baabuurta maraysa horta baabuurta waxaa celiya waa booliiskii gobolka waxaa baara waa booliiskii gobolka haddii ay qoraxsin ka gudubtay baabuurta oo dhan iyo haddii ay bari ka timidba waxa wax baaraya iyo wax midkaynaya waa booliiskeena waa waxa wax baaraya oo heer hiirshabelle iyo heer federaal marka in hal qolo lagu eedeeyo ma aha wax aan filayo horena de fuli xantiisa ma moogo xagaldaacin oo dhinacan ay tuhun ay qabeen oo ay igala sheer gareeyeen dadka reer qoraxsin waa jirtaa guddoomiye haddii saaka ciidamada aad soo daadisay ay ahayd ciidamo aad ku xumaynaysa dadka reer qoraxsin aad ku xumaynaysa ay tahay taas waa mas-uuliyad xumo waa qalad waa waxa aan kaa rabnaa inay weliba haddii ay jirto aad raaligelin shacabka ka siiso waayo dadkan adaa labada dhinacba guddoomiye adaa guddoomiye labada dhinacba waa haddii magaalada maamulaa ka jira degmadii waaye waxma adiga heer gobolaad tahay bulubuurto jalalaqsi matabaan maxaas intaasaad xakuntaa beledweyne intaasaad xakuntaa marka in magaalada guddoomiye degmo aad u ekaato guddoomiyihii degmo nool aad guddoomiye degmo u ekaato runtii waa aadaa looga fiican yahay guddoomiye hal dhinac ha ku eedaynin wixii dhacay adinka waa ceel jaalaad u qaxdeen aniga gurigeygaan deganahay booshkayga ii xiran inaan diyaar waxaan u ahay inaan iska difaaco maxaa u cararaysaa ma biibaxa soo baxday markaad ceel jaalla aadaysiin ma biibaxa soo baxday biibaxa markay soo baxdaa ceel jaalla aan ku aqaanay oo biyaha aan kasoo gelayno meeshii muxuu ahayd stadiumkii aan kasoo gelayno cayaaraha oo intaas lasoo jiirayo doomo lasoo raacaha qaxid aan isku ogeen magaalada kusoo noqdo dadka deganaasha ku beera muxuu ahay guryihiina isku waardiyeeya ammaankaaga haddaad adiga sugun waysi cid kale ammaankeeda ma sugaysi waa inaad sugutaa ammaankaaga waa inaad dadka muxuu ahay aad shacabka kala qaybinin oo aad kalsooni u muujisaa wallaahi oo bilaahi oo tallaahi isimkii ilaahan ku dhaaranaya kan bari ku nool iyo kan qoraxsi ku nool isku siyay iyo xanuujinayeen isku dhiigooda iyo dhiigayga waa isku mid adiga marka xoogow xagaldaacinta dhinacaana xoogow lagjegsiga aad samaynayso dhinacaana walaalow dadka ka daa ha kala qaybinin ummadda adaa guddoomiye u wada ah dabageedaa madaxweyne u wada ah ummad isla dagaalgelaysa ahaato waxaa i keenay u qaatay dhibaatada ka dhacday maxaas iyo moqokori ka dhacday waaye waxa qoriga ii saariyey oo aan rabaa inaan uga aargudo adigana waad qaybinaysaa meeqaa reer qoraxsin ah oo indhaha ku soo beeshay meeqaa reer qoraxsin ah oo kasoo dagaashay meeshaas maxaa kaligood aad shabaab ugu tiimbaraynaysaa maxaa kaligood aad uga hadlaysaa maxaa buundada ah loo xere aad u leedahay sabab amaad booliiskii intidoo tiraahda hala baara wixii ka soo baxay shacab ba allah ka dhigay hala baara aad tiraahda oo kuwan kale oo gobolka soo galayo kalena aad tiraahda sidoo kale guddoomiye cali aniga hadda intaas ku dhaafi maayo tacsiya noo taala dadka ha qaybinin adaa guddoomiye udaa haddaad guddoomiye u ahayn ii sheeg cali guudlaawi iyo dabageed waa lala hadlaya laba guddoomiye yeelinaysaa bari iyo qoraxsan haddii kale walaalnimo raalli ahaansho oo adiga aad madaxdayna ku tahay ayaan kugula shaqaynaynaye dadka ha qaybinin
ha u ekaanin carabkaaga yaan laga dareemin calooshaada yaan laga dareemin inaad dadka qaybinayso marka anigu intaas aan rabaa inaan ku dhaafo muxuu ahay canaantii yareedoon u soo jeediyey walaalkay guddoomiye cali jeyt waxaan kaloon rabaa dadka reer hiiraan war dagaal baa nagu furan ugu dambayn waxaan rabaa inaan la hadlo shacabka reer hiiraan oo meel kastoo aad joogtiin xubintiinna iyo xibnihiinna iyo jidhkiinna iyo dhiiggiinna oo isku yaalla ama wiilka ka dagaalamaayo moqokori iyo wiilka ka dagaalamaayo maxaas iyo kan ceel cali iyo joogo buqdi iyo farlibaax joogo waxaad tihiin hal xubin iyo kan matabaan korkiisa joogo gelijir joogo geedigiin waxaad tihiin hal xibin haddii ay qof xanuunto xibin ka mida idinkoo dhan waa idin wada xanuunaysaa walaalayaalow ku dadaala inaad iskaashatiin inaad muxuu ahay wax wada qabsatiin inaad muxuu ahay cadowga iska kacisiin